kulankan oo ahaa mid maamulka gobolka Mudug kula xisaabtamay hay'adaha caalamiga ee gobolkan ka howlgala ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wakiilada gobolka Mudug ee qaar kamid ah wasaaradaha Puntland sida wasaaradda maaliyadda, wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta, wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland waxayna dhamaantood soo gudbiyeen qodobo muhiim ah oo hay'adaha caalamiga ahi ay ku amrayaan in ay wada shaqeyn rasmi ah maamulada deegaanka kala yeeshaan waxqabadyada ay gobolkan ka sameeyaan. gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tiri oo kulankan furay ayaa hay'adaha caalamiga ah kala hadlay arrimo fara badan oo dhamaantood ku qotoma waxqabadkooda gobolkan wuxuuna ku amray hay'adaha inay soo gudbiyaan waxqabadkooda sanadkii tagay iyo qorshe hawleedka sanadkan cusub wuxuuna sidoo kale aad uga hadlay hay'adaha in ay maamulka deegaanka ku wargeliyaan ama ay la socodsiiyaan shaqooyinka ay gobolkan ka qabanayaan iyo in ay u hoggaansamaan qorshaha la xisaabtanka ee hay'adaha dawladda. gudoomiyuhu waxa uu sidoo kale ka digay in hay'aduhu gobolkan ay caalamka uga gudbiyaan xog aan munaasab ahayn ama aan jirin oo la xiriirta arrimaha amniga. warbixin sanadkii hore tagay shaqadoodii sida qoraalka ku qeexan inay soo gudbiyaan waxaan kala doonaynaa inay soo gudbiyaan waxqabadka sanadkan ay soo socda oo hadda bilowday waxaan doonaynaa wax walba oo gobolka laga qabanayo oo hay'aduhu ay qabanayaan in maamulku xogaal u yahay shaqo walba oo la qabanayo cidii shaqadaas ay xusaysay iyo wasaaradda ay xusaysay oo mas'uuliyiintooda in badan hadda la fadhiyaan inay xogaal u noqdaan waxaan iyaduna ka digaynaa in xog aan munaasab ahayn ama aan jirin aan gobolka laga gudbin inaan gobolka laga fulin karin wax khilaafsan ama wax u dhimaya jiritaanka iyo shuruucda Puntland sidoo kale inaan gobolka cidii ka gudbisa xog wax u dhimaysa oo cid kale jiha kale u gudbisa siyaasadda Puntland iyo jiritaanka Puntland xogtaas oo aan ahayn mid dhaba in iyadana laga xisaabtami doono. waxaa iyaguna kulankan ka hadlay wakiilada gobolka Mudug ee qaar kamid ah wasaaradaha Puntland oo soo gudbiyay qodobo fara badan oo hay'adaha ay ku amrayaan isla markaana ay ugu muhiimsan tahay in maamulka lala socodsiiyo shaqaalaha hay'aduhu ay qaadanayaan si meesha looga saaro dhaliilo fara badan oo hadda jira kuwaas oo ay kamid tahay in hay'aduhu ay shaqaaleysiiyaan gaadiid iyo shakhsiyaad aan deegaanka ahayn halka gaadiidka iyo dadka deegaankuba ay shaqooyinkaasi qaban karaan laakiin aan loo tixgelin. waxa kaliya anigu rabaa inaan wax yar ka taabto waa arrimaha dhaqaalaha sida canshuurta dawladda oo laga doonayo dadka u shaqeeya hay'adaha andhoo shaqaalaha local staffka iyo qandaraaslayaasha iyaguna localka ah oo hawlaha ka fuliya gobolka Mudug waxaa intaa weesha dadka iyaguna heshiisyada dhaqaale la gala hay'adaha sida kirada guryaha kirada baabuurta iyo heshiisyada kale ee hawl fulinta ee ka socda gobolka mar haddii intaanu hay'ado ay u yimaadeen dalka inay ka sameeyaan mashaariic iyo waxyaalo kale oo bani aadamnimo oo u baahan horumarin waxaa loo baahan yahay in xisaabta lagu daro canshuurta lafteedu inay intaa ka qayb galayso laakiin bal horta liiska ogaanshaha qandaraaska iyo qandaraas aan wasaaradda maaliyaddu loo oranin qandaraasla aan loo wado ama mashruuc aan qandaraaslihiisi la soo canshuurin in la siiyo waa xaraam maalin walba waxaan aragnaa qandaraaslayaal mashaariic magaalada ka fulinaya oo gobolka ogeyn wasaaradda hawlaha guud oo dhismayaasha ku shaqaalahayd ogeyn oo maalin walba waxaan arkaa niman eriyanaya wixii waxa la isla ogyahay inay yihiin baafiican sabab idinku hadeerto aad evasion u samaysaan meesha ma wata laba in muwaadin oo hadda laga qaadi lahaa $20 wax la cararama marka taasna waxaan ka codsanaynaa inaad dawladda gacan ka siisaan shaqaale badan oo local ah iyo kuwa banaanka ka yimid oo international labadaba waa joogaan meesha
wasaaradaha waxaan xaq u leenahay kan dibadda ka yimid oo internationalka ah inaanu ogaano imaatinkiisa meesha uu ka shaqeynayo iyo shaqada uu qabanayo wixii shaqaale ah laga bilaabo wixii shaqaale ah oo laga qorayo gobolka mudug imtixaan ha galeen ha ahaadeen kuwa aan xirfad u baahnayn oo adeegtooyinka iyo waxyaalaha la mid ah waxaan codsanaynaa horta dhammaan liiskooda inaanu helno shaqaalaha hay-ad walba shaqaalaha u shaqeeya copy cv-giisa ka mida inaanu helno faylkiisa inaanu copy ka helno qandaraaska uu hay-adda la galay contractgiisa inaanu copy ka helno inaanu idinla ogaano qofkaas waxa uu yahay kan hadda idin shaqeeya kii dambe oo hadda la qori doono kan hadda la qori doonana meesha darbiyada aad waraaqaha ku dhegstaan oo aad tirahdeen hable waxay u baahan tahay intaasoo shaqaala ah iyo magacaas waxaas xirfadaasoo shaqaala ma lihidin idinkana ku dhegstaan xaq annagaa ule inaanu ku dhejino noo soo gudbiyo liiska baahida shaqaale aad u baahan tihiin annagaa idin faafinayna imtixaanka idinla qaadayna kii mutaysta shaqadaasna si wada jira dhinaca hay-adaha caalamiga ahi ma jirto jawaab cad oo ay arrimahan ka bixiyeen waxayse tibaaxeen in jawaabaha qodobadan ay ula laabanayaan madaxda ka sarreysa maadaama aysan go'aamo degdega qaadan karin waxaana kulankan fadhiyay hay-adaha kale ah UN OCHA, UNICEF, UNESCO, WFP, Horn Relief, World Vision, NRC, UNHCR, VRC, Enterprise iyo UN Habitat. arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli dadweynaha gobolka mudug ay dhaliilo ka muujiyeen hay-adaha caalamiga ahi oo shaqaalaha ay qaadanayaan ku kooba shakhsiyaad ay ka keenaan meelo ka baxsan Puntland isla markaana aan loo tixgelin gaadiidka gudaha iyo aqoon-yahanada deegaanka ee shaqooyinkaasi qaban kara. Cumar Axmed